بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامق ليسين موضوع وحوية مشكلة الصومالية حل ملاذهي، وأنا موضوع محاضرات كبدنا أسلاذهي أصير أسوأ السعودين محايا لي أمض سيكون بربرتو سيكون لسنتو وحاصل لأن أولا سوء آخرين هايي وحال أولا جيدا إن مشكلة دينا قارهان صوماليات أن فهمنا وحل الله له ووحي بربورية اللي فهمه سيدي لو توسين لها اللي فهمه markii intii ummado kale aan ka sheekeynayno oo lagu cibro qaadanayo aan muslimiinta walaalaheena ah annaga lafteena marka mushkiladeena booskeeda iyo xalkeeda ayaa maanta insha Allah xoogaa dul maraya runtii mawduucan la doortay ama mu'tamarkan loo doortay waa mawduuc muhiim ah oo ummadda muslimka oo dhan taabanaya. waxaan ku bilaabayaa su'aal ah maxaa loola jeedaa mushkiladda Soomaaliya? mushkiladda Soomaaliya xal ma leedahay? maanta dhib badan baan haystaa. mushkilad faqri baa jirta, mushkilad tahriib ayaa jirta, qabaliyad baa jirta, faragelin shisheeyaa jirta, khilaafaad kala nooc ah jira. marka mushkiladda xataa burcabadeed baa jira, nimanka dadka gaalaysiinaya ummadda leenayaa jira. marka mushkiladda Soomaaliya oo la sheegayo oo su'aasha la iska weydiiyo waa tee si aan ugu fahmay waxa weeye burburkii dowladnimada Soomaaliyeed oo asaaska mushkiladda ah ama midda u weyn baa loo jeedaa. mushkiladda Soomaaliyeed burburkii dowladda Soomaaliyeed kala go'ii ummadda Soomaaliyeed kala taga ummadda Soomaaliyeed ayaa loo jeedaa. ayadaana waxaan oo dhan dhashay hadday tahay maxaan ku oraa tahriibka, hadday tahay qabaliyadda oo soo baxda, hadday tahay quluwiga diiniga iyo afkaartan diiniga oo khaldan, hadday tahay faragelinta oo ziyaada. waxaasoo dhan waxaa keenaya waxa weeyaan waa burburkii dowladda wey. su-aasha labaad waxaa weeye oo hadda burburku dowladdu armuusan mushkilo ahaynba. dadka qaar baa laga yaabaa inay burburtaba dad baa rabay sooma inay burburto dad baaba rabay oo xal u arkahayay oo inay burburto waxba nagama bi'ina waxba noo ziyaaday ama waa noo fiican tahay ama bagah miyaa la oran jiray dad baa oran laga yaabaa. marka inay dowladdii naga burburto lafteedu horta mushkilo aan isku raacsannahay ma tahay mase dad bay la fiican tahayba. marka inay burburtaa fiicnad bay qaar leeyihiin maxaa yeelay maxay noo haysay diin fiicanna ma haynin, maamul dowladeedoo fiicanna ma haysan haynin, dhib bay iska ahayd. marka inuu dhibkaasuna dhaafo ummaddu ka nasato armay iska fiicnaydba. marka dareenkaas ah alla ilahe ha burburto horta waa dareen jiray, laakiin waxaa loo badnaa in la filahayay inay wax fiican bedeli doonaan oo booska geli doonaan baa loo badnaa. waxaana mulaaxadaynayaa maadaama berigaas aan dhalinyaro ahaa oo maaragtay wixii dhacayana aan ka warqabay, dareenka ah in mustaqbalka aan la odorosin oo xaaladda taagan lala caadifoodo waa dareen lagu yaqaano Soomaalida ilaa haddana jira. marka maalintii shalay ay burburaysay dowladdeenu ay burburaysay dad badan oo aqoon-yahan ah, dad badan oo xataa ducaad ah, culummo ah iyo qayrkoodba ayay la fiicnayd in waxaasu dhacaan baa la fiicnaa oo xanuunka dowladdu ay ku haysay
iyo maaragtay fasaadkeeda ayaa ka qaalib ahaa in la odoroso oo isha lagu hayo talow maxaa ka dambayn doona marka caadifadda iyo inaan mustaqbalka la odorosin iyo in xaaladda taagan lala ficiloodo cudur aan leenahay weeye haddaan nahay Soomaali ilaa haddana waa uu jiraa dadkuna badana ayagoo wax badan yaqaana ayay ku liitaan dhanka inay mustaqbalka odorosaan oo ka baqaan waxa imaan doona markaas dareenkeennii baan dib u xusuustaa in dhib weyn dhacayna lama ahayn in waxaanu xataa na dhaafaan dadka qaarkood way taageersanaayeen laakiin maxaa ka dambeeyey waxay muujinaysaa odorosiddu inaysan saxnayn bay muujinaysaa laakiin sidii runtaa waxaa weeyaan inay ka dartay inay dhibaatadii dhacday burburkii dawladdu ayadoo dhibka ay haysay iyo dhibka ay ummadda ku haysay iyo khaladka ay ku jirtay diini ahaan iyo dawlad ahaanba markay burburtay wixii ka dhacay baa ka sii daray maxaa yeelay ummaddii Soomaaliyeed meeshii yarta ahaydoo ay fadhiyeen ama ogxantii ay u taallay ama isku weheshanayo isku waardiyeynayeen ayaa meesha ka baxday waxaana soo baxday ceebteena soo baxday waa tii la islaayey waa tii amni la waayey waa tii gaajo loo la'day waa tii dibadda loo qaxay ilaa hadday socota qaxi uu socdaa markii dawladdaas ay jirtay sida la ahaa haba la iska liito dhan kaste sida la ahaa ayaa ka fiicnayd sidii kadib la noqday maxaa yeelay ceebtana soo baxday oo qofkii Soomaaliga ah bahdelan ayaa banaanka lagu arko gacanta horsanaya gabdhaheennii baa lagu kufsaday maxaan ku qoraa saxarooyinka saxrada iyo laba degaanka u dhaxeeya Suudaan iyo Liibaan iyo meelahaas badda ayaa lagu baaba'ay ilaa haddayna socotaa marka in meeshaas yartaa la joogo oo duruufta adkaato laakiin in xoogaa la isweheshado oo qofka Soomaaliga ahi uu la joogo Soomaalidiisa kale oo wiilkii xumaan lahaa ama gabadhii xumaan lahayd ay waalidkeedii qabiilkeeda la joogto xishooto ayaa noo roonayd laakiin maantay markii dibadda la aaday oo wada joogii iyo maaragtay dadkii isiqaanay ay kala lumeen dad badan baa soo baxay aan xishoonaynin oo qurun sheegaya oo maaragtay isqaawinaya marka dadka noocaas waxaa samaynayaa haddii ay Soomaali dhex joogi lahaayeen taqriiban waa la qaban lahaa ama way xishoon lahaayeen ama fartaa lagu fiiqi lahaa su-aasha kale waxay tahay mushkiladii way dhacday inay mushkilo ahaydna waa garanay waa sax talow xal ma leedahay waana su-aasha mawduuca jawaabtii iyo kooban waxa weeyaan waa bishaare xal waa leedahay weeye oo maxaa ku tiri waxaan ku idhi qowlu maaragtay nebigu sal alla alay wasalam oo noo bishaaraynaya oo odhanaya maa anzala allahu daa'an ilaa anzala lahu dawaan ilaahi subxaanahu wa tacaala ma soo dejin cudur ilaa wuxuu soo dejiyey daawadiisa cudurkaasi dabcan dee amraadda badaniga baa hadda loo jeeda laakiin waxaa soo gelaya wax kastoo dhibaataha hor dhaca asbaab bay leedahay cilaajna way leedahay way baa loo jeedaa marka wixii nagu dhacay oo cudurka ijtimaaciga ah oo siyaasiga ah waa cudur laakiin daawuu leeyahay qad jacala allahu likulli shayin sababan وقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيضا وحوين وبشارة كلوي أنه موجنيسا ولي إنان شانس لأنهي وهذه الشيء أنه وحيسنه إنتان حماني وحيدنا لك قاضي إن هذا وحيدنا لو سيعلن كره هذه أنفعنا أنا ويا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أو كلويا waxaa kaloo daliil u ah oo muujinaya inaan rajo leenahay wax marna soo maray in la soo celiyo waa shay dhici kara weeyaan waana qaanuun ijtimaaci ah wixii mar jiray oo la sameeyey in mar kale la sameeyaa waa macquul weeye marka mar baan jirnay dawlad baan ahayn waa isku duubnayn xoogaa waa roonayn war mar kale ma samayn karnaa jawaabtu waa haa
waxaa kaloo rajo ah maaragtay dowlado kalaa jira oo nooceena oo kale ah ama ahaa oo burbur soo maray oo qabyaalad soo maray oo annaga ka badan islaayay haddana way ka baxeen marka lafteennu inaan ka bixi karno baa laga fahmayaa marka jawaabtiiyo kooban mushkiladda soomaaliyeed xal ma leedahay waa haa rajo ma leenahay waa leenahay waxaan u daliil intii aan sheegay su-aasha kale marka waxaa weeye hadday saas tahay oy xal leedahay talow xalkaas sidee loo qaban karaa qabashadiisu ani aragtideeda weeye shuruudda ay leedahay iyo madkhalka ay leedahay ayaan tilmaamayaa 5 shardi ama 5 siyood ayaan ku soo koobay kow mushkiladda xallinteeda inay u istaagaan dadkeeda oo muslixiinta ah waxaan ka wadaa ilaa hadda mushkiladdeena dadkii xallin laha uma istaagin dad ku danaysanaya ayaa meelaha jooga marka mushkiladda xallinteeda in horta dadkeedii ay u istaagaan waa laga maarmaan oo almuslixuun ay u istaagaanoo meesha laga saaro almaslaxiyiin dad maslaxiyiina ayaa hadda carrada jooga laakiin dad muslixiinahay weli shaqada uma istaagin hortaas waa midda labaad waxaa weeye haddii wax la xallinayo mushkiladda asalkeedu waa gudaheenna weeye ee dibadda maaha qul huwa min cindi anfusikum marka in isha lagu hayo oo mushkiladda xallinteeda laga bilaabo gudaha laga bilaabo saddexaad mushkiladdu waa mushkilad soomaaliyeed saas darteed xalkuna waa inuu ahaadaa xal soomaali ka imaanaya waa muhim xal ka imaanaya meel kalena anfici maayo afar in la kala saaro mushkiladda asaaska ah iyo waxa faraca ah oo tahriib baa jira burcabadceed baa jira xataa shabaab baa jira waxaasoo dhan waa mushkilooyin ka dhashay mushkiladda jirtay bay ka dhasheen marka mushkilooyinka faraca ah iyo mushkiladda asaaska ah in la kala saaro weeye oo markaas xalka laga bilaabo mushkiladda asaaska laga bilaabo weeye waa shanaada u dambaysee marka waxa la xallinayo waa inaan u shaqaynaa laba siyood oo ah xal lagu xallinhayo mashaakisha markaas taagan lagu xallinayo iyo xal fog oo istiraatiiji ah oo ummadda wakti dheer qaadanaya marka waxaan idhi waxaa laga maarmaana in shaqada ay qabtaan dadkeedii inay u istaagaan baa la raba maxaa yeeley hadda dadka meelaha jooga oo ummadda hogaaminayaa dad maaragtay muslixiina uma badna dad maslixiyiin ah ayay u badan yihiin waana dad markay mushkiladda arkeen inay xalliyaan ma samaynine labay u qaybsameen dad xalka u arkay aan kala tagno haddii la isdagaalay oo la isfahmi waayey ha la kala tago dad baa xal u arkay kala taga dad baa xal mooday in la kala go-o dad baa xal u haysta inay tahay inuu walaalihiisa ka cararo qof baa xal moodahaya marka qofka noocaas waa inuu ogaadaa haddii jirku uu kala cararo oo gacantu cararto oo lugtu cararto xaggee aadaysaa lugtii gooday maxaa la odhan jiray man fasala ama maa ubiina can xayin fahuwa mayit waxa nool wixii ka go-aahay mayit bay noqonayaan ama waa la aasayaa ama hadday yani caymo leedahay mid kale oo meella ayaa isticmaalayo waxaa loo isticmaalayaa sber bartis baa loo isticmaalaya marka haggaa go-did oo meel aadid haddaad caymo leedahana waa lagu qaadanaya haddaad bad leedahay haddaad xoogaa intifaac leedahay qolo kaloo yaaban ayaa ku qaadanaya oo kaa faa'iidaysanaya waa sida maaragtay qofka dhimanaya haddii ishu caymo leedahay ama beerku caymo leeyahay qolaa qaadanaysa ma ogtahay oo ka faa'iidaysanaysa marka waxaa noqonaysaa sber bartis baa noqonaysaa ama waa dhimanaysaa mayd baa noqonaysa waa lagu aasaya
marka kala tagu xal ma aha kuwaas waa qolo kale waxay yidhahdaan kala tegi maynee waa wada joogaynaa laakiin waxa weeyaan dad aan qorsho lahayn oo qorsho saxa lahayn oo ku wada jooga inaysan wada joogin ii tali kuu talin maayo aan kuu taliyo kaa yeeli maayo aan wada joogno wada joogi mayno aan kala tagno kala tegi mayno war noocaasoo aan dhammaanaynin ayaa hadda lagu wada joogaa dowladda soomaaliyeed marka walidaalika ayagoo israbin ayaa waxay samaysteen nidaam nin kasta uu meel ku dhagahayo neef uu nin haysto seynta midna uu lugta haysto midna hoggaankii hayo oo aan dhaqaaqi karin ayay dowladdii ummaddii noqotay maxaa yeele dad aan heshiis ahayn baa waxaa la iskugu daray markaasaa waxaa ka dhacday aan isla qabsanno macnaa aan isla qabanno maaha dowladda iyo maamulka aan isla qabanno maaha ee waxa weeye aan isku qabsanno aan isla qabanno maaha aan isku qabsanno ama ku qabso ku qadimayside waxa noocaas weeye marka dowladdeennii walidaalika marka waxaa meeshii o dhan isku qabsaday oo isku haysta oo ka dhex shaqaynaya oo maaragtay dowladdii ummaddii ka socon la'dahay 3 mushkilo oo mid kasta uu miim ka bilaabanayo mid waxa weeyaan siyaasi manaaficayste ah manaaficayste siyaasi ku manaaficaysanhaya jagada iyo maamulka marka manaaficayste markuu yimid oo dowladdii iyo maamulkii ka manaaficaystay waxaa soo baxay miinayste mataqaanaa miinayste kuwa dadka qarxinaya way olaynaya waa miinaystayaal manaaficayste siyaasi manaaficayste ah iyo mid ummadda qarxinaya oo miinayste ah iyo mid la yidhaaho mooshinayste mooshin ku shaqaysanaya waxbaan ridahayaa waxbaan keenayaa manaaficayste iyo miinayste iyo mooshinayste marka jawiga noocaasa ayaa wuxuu keenay dal aan meelna u soconin buu keenay oo iska magac ah oo iska magac u yaal ah marka xalka wuxuu yahay marka waxaa weeyaan in ay xalka u istaagaan dadkii mudnaa baan ku bilaabay oo muslixiinta ah oo dadka muslixiyiinta ah meesha ay ka baxaan gaar ahaan dadka culummada ducaadda ah waa inay kaalintooda qaataan ummadda inteeda badani khayrka way rabaan inta badani waa khayr jecle khayr doone khayr rabe aamusan weeye oo haddii khayrku yimaadana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hadduusan imaaninna hadda maxaan samayn karaa buu ku leeyahay in khayrkii iyo diyaarsan loo keeno ayuu iska rabaa oo take away ah magarata marka ducaaddii culummadii marka waa inay kaalintooda qaataan baa la rabaa oo maydaanka u soo degaan oo dadkaas aamusan oo la dulminayo oo lagu cayaarahayo ay hoggaamiyaan baa la rabaayo ay ugu yaraan hoggaanka fiican tusaan anigu ma lihi culummadu ayagu jagaha qaataan laakiin waxaan leeyahay siyaasi fiican ha soo saaraan siyaasi fiican oo weli caymo lahaa jira oo hadduu dad fiican helo oo aragti helo shaqayn karaa jira marka ummaddu waa diyaar ah siyaasiyiin fiican say ugu soo baxaan culummadu waa inay kaalintooda qaataan oy maaragtay ay ummadda isku keenaan baa la rabaa oy ka bilaabaan kow horta wixii nagu dhacay maxay noogu dhaceen maxay ahaayeen xageedna laka galay waa inaan fahamnaa cudurkiina dudumiyey ayaa ilaa hadda nagu dhex jira cudurkiina baaba'ashay oo cadaalad la'aanta ahaa oo qabyaaladda ahaa oo kalsooni la'aanta ahaa oona burburiyey maalinta burburaynay ayaa ilaa hadda shaqaynaya maxaa keenay layskuma sheegin cudurkaas layskama daaweynin layskama tallaalin lagama heshiinin marka cudurkaas in la sheegaa la rabaa oo yaa sheegaya see loo sheegayaa
ولا بقيا maxay hadii wixii laga sheego qabaa'il baa xanaaqahaya oo oranaya annaga aad naloo jeedaa marka anu xalkii baan hayaa maanta insha Allah taala xalku muxuu yahay ragga ducaada culimada ahi dadka muslixiinta ahi nin kasta qabiilkiisa ha mathalo hana ku hadlo qabiilkiisa ha la hadlo qabiilkooda waxay haleeyeen ha sheego cid kale ha sheegin cid kale ha isku dhawaanin qabiilkaaga ka hadal wuxuu haleeyay sheeg wuxuu khalday sheeg وعاي كرتا موقته لقى ما حيجو مد كلنا قبيل كيس عايو أو حقه مد أفر هذا عايو مد سنة هذا عايو مركي ننكستو شيخي قبيل كيس عايو قبائش وحليهين وبيل كين وحو شيء واصح عن استوسن ويل كين وحو تلمامة واصح عن قرت قاضنه عن ظلمك إسكدينه مركي قبائش وحا ماركتي وحا كعنا قبيلك وحا كعنا يا nin aan wiilkooda ahayn wax u sheegaya markaasay wareerayaan marka laga daayo wiilkooda ha lagu diro oo runta ha u sheego markii wadaad kasta iyo daaci kasta iyo muslix kasta uu qabiilkiisa dhibka ay geysteen uu sheego uu dadka ka celiyo markaas waa la isjeclaanaya markaas taas ka bilaabanaysa markii dhibka aan ogaano oo qabiil kasta dhibkiisa la sheego oo la qirsiyo oo markaas la isku saraaxoodo Soomaali maantay runta isku ma sheegin qabiil kasta asaga sheekaysta maxaan la dulmiyay maxaan la ku sameeyay waxa lagu dhacmiyaa ogtahay balaaya ka dhacday taariikhda Soomaaliya oo dhan annaga ayaa madluumiin ah kan kalena ma aragtay waa nafsu shay annaga madluumiin ah kan kalena waa sidoo kale cid oranaysa aniga waxaleeyay ma maqlaysid cid kasta ayada waa maartay dib loo geystay saxna maaha marka runta la sheego cid kastana waxay geysatay ayada sheey kartay shiikheedu iyo wadaadkeedu iyo daacigeedu ha sheego markaas la isku musaaraxoonaya markii la isku musaaraxoodana waa la musaalaxoonaya al-musaraha thumma al-musalaha inta wax la qarinayo oo beenta la sheegayo runta la gaari maayo waxa kugu daliila waxa runta la gaarayaa markii waxa aad geysatay aad sheegtid ummadana cafis aad weydiisatid markii nabi yuusuf walaalihiis ay dhibeen isagoo yar oo naxariis ka mudan ay ku cayaareen ay maartay god ku rideen waa dambi weyn khatar weey markii ilaahay qadaray oo asagoo boqor ay la kulmeen maxay yiraahdeen ma dhihin anu maxaan sameynay balaay ku qaadatay qolooyin baa ku dafay kuwa kale ahaayeen anu ma dhihin maxay yiraahdeen la tallahi laqad aatharaka allah alayna wa in kunna la khati'in wa i'tirafin asla kuma dhibin ma maxkamadaynin كما سي عمبارين ويلي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ساسال الربا مرك مدة صوماليات ما أنت أن دولة قادنا إلى حد ولا قيلنا يا وأنا الظلمي هي رساسو يالي ساسال سميي هي البعنتوجي هي البالقي هي الباولقاتي سكر ما يصير شو يشاننا جواب ملها وردتكم ما هذلان ما runta sheegan dhacdooyinkii dhacay ciidan baa la leeyay jaziira meel ila dad ugu baabashay xaga wax ka dhaceen culumma maxaan ku rahaa la laayay dhacdooyinkii waaweynaa oo maaragtay soo maray in laga run sheegaa la rabaayo lees afiyaa la rabaa siiba dadka siyaasiyiinta oo jogooyinka waaweyn hayay oo maxallo tuhumada ah inay isbaryeelaan baa la rabaa oo ummad ay yiraahaan waxbaan sameeyay hadii jiraan hal la cafiyo ama in kastoo aan jagahay waxa ma sameeynin ma yahu yaa la tuhmin hayra qof baa loo baahan yahay marka in la musaaraxoodo oo la musaalaxoodo oo la iscafiyo oo markaas la dhisto nidaam
كوديسان كالسوني أو ليس لقبنا يه أن ليسكو قبسانين مركز إيمانية لكن هذا وحويان ماذا حوينها نبى كل دجان مثل كأنه مثل كلا كل دجان كأنه كلا كل دجان ومعي كليين قبائشي استقالي أيها إسهايستو لو قيبي جدا وقول كستوى حال يري وحال صعودة ملك قدك قالوا قولي marka ma aragtay hashi maandeeq la oran jiray miya ma garanayo ayaa ninba meel ku dhagan yahay ma daaqayso biyo ma cabayso baad ma cunayso miyay noolaanaysaa waa baktinaysaa soo garamaysid marka nidaam kalsooni leh oo dad heshiiye ay dhisteen waa ku kalsoonahay adigu noohay war may adigu ila qabo war niyo meega deysid way kula qabanaya saasaan rabaa markaas iimaanaysaa laakiin dad iswaardiyeynaya oo isha isku haya oo maartay isxastahaya dadka meel ma gaarayaan markii la heshiiyo nidaam lagu kalsoon yahay baa dhismaya markii la helo nidaam dhisana istiqraar baa la helayaa amni ma la helayaa kadibna tanmiya ayaa la helayaa intaas noo jira fiiriya annagoo isku musaaraxoona annagoo ismusaalaxayna iscafina runta isku sheegna ayay noo jirtaa kadibna istiqraar iyo tanmiya ayaa ku xiga marka wuxuu dhawaan badanaa oo haddana dheera waa meesha laga yiraaho doqonay hee libtu kuu dhow kaana dheer baa la yidhi waa mid oo kale weeyaan marka caqabooyinkaas aan soo sheegay ayaa jira oo naga hortaagan in wanaaggaan musaalaxadan la gaaro caqabadda siyaasiga manaaficaystaha ah caqabadda miinaystaha iyo amni la'aanta ah caqabadda mooshinaystaha ah talow say u kala daran yihiin aduu isku miisaan saa rabtid laakiin ana waxaan is leeyahay midka miinaystaha ugu daran way jirtaa waa laga horreeyey oo dalka siyaasi khariban ayaa dulka burburiyey oo dowlad la'aanta keenay oo jaaniska siiya burcadbadeedka tahriibka faqriga qabyaaladda iyo dadka iyo kuwan dadka leeyahay waxaas oo dhan waxay ka dhasheen siyaasi fashilmay ayaa keenay waa sax laakiin waa la cayman lahaa oo siyaasiga xun waa la iska qaban lahaaye fursad iyo amniga iyo isku imaatinka iyo xiwaaraadka iyo niqaashaadka iyo isu socodkoo dhan waxaa diidan miinaystaa diidan jaaniskii ummadda wax loo qaban lahaa miinaystaa diidan kan amniga baabi'inaya ayaa wuxuu diidan yahay in ummaddii la caymiyuu diidan yahay markaan waxaan ka bilaabi lahaa miinaystaha ugu daran ilaa hadda say ila tahay marka miinaystahaas iyo manaaficaystahaas iyo mooshinaystahaas loo xayiran yahay dalka haddaan laga qabanin oo culummadu aysan tadxiyo samayn iyo ducaad iyo dadka muslixiinta ahi أنا waxaan ka baqayaa laba shay ka baqayaa mid waxa weeye markii dalka laga quusto oo amni la waayo oo nolol la waayo hadday noo heshiiyaan gaaladu oo 100 markab oo waaweyn ay keenaan xeebaha Soomaaliyeed oo yiraahaan war yaa baxayay ay yiraahaan dalka in lagu haraayo ani ilama ah si magaalooyinka waa dhici kartaa qof reer baadiya inuu iska haro laakiin inteena magaalooyinka joognaa maraakiibtaas isku guraynaa bimacnaa waxaan u diyaarnahay in dalkan aan ka tagno baan kulli sugaynaa waa halis mid kale waxa weeye in dalka loo kala qaybiyo dawlado yaryar iyo maamulo yaryar oo dawlado waaweyn ay ka manaafacaystaan oo dhulka baartaan sida Congo oo kale maanta ay tahay oo meel dahab yaallo qolo ku habsato meel uu yaalo uranium ku kala ku habsadaan meel kalena bas ninka Soomaaliga hadii la yiraaho magaaladaada Soomaha waa dawlad maxaa ka baahaya calankiina waa kana bariyahan calamaha ma ogtahay la samaysanayaaba oo cirka marahayaba calankii buluuga ahaa waa laga niyad jabay calankii buluuga ahaa nama mathalo calankii buluuga ahaa inaan ku jiro u malayn maayo
marka mid kale aan samaystay federaalka lagu bilaabay walba 5 iyo 6 kala qaataa la yiri federaalkii waan anfici waayay maanta qabiil buu maraya calankii marka haday gaar loo heshiiso oo yiraahaan tuule hebel dahab baa lagu sheegay iyo degme hebel maxaan sameeynaa dawladdan ka dhigaynaaba waa ictiraafaynaa la diidi maayo Soomaali ma diidayso waa arki doontaa ilaahay naguma keenay nin degmadiisa raba inay ahaato dawlad Soomaalida kale meesha ka baxaan dawlad buu noqonayaa gaala waardiyeynaysa calan buu taaganayaa aynaboor baa loo sameynayaa dekad baa loo sameynayaa dahabna waa laga guranayaa inta u waaweyna waa laaluushayaa wassalaamu calaykum waa dhici kartaa waana wax hadda muuqda weeye in dawladaha qaarkood ay la saaxiibayaan ama la heshiinayaan maamulada qaarkood ay soo jarahayaan oo ku xirnaantoodii ummadda inteeda kale laga soo jarahayo oo meelo kale loo gacan haatinayo oo la leeyahay waxa uga baahan tahay marka dalka in laga qaxo oo maraakiib laga raacana halis baa loo yahay in laga dhigo meelo la kala maamusho oo dahab iyo uranium iyo batrool laga qotana ayadana maartay halis baa loo yahay Allah subhanahu wa ta'ala naguma keenay marka waxaan leeyahay dadka muslixiinta ahi oo culimada ahi oo ducaada ahi ha ka gaaraan dalka oo shacabka tirada badan oo wanaaga jecel oo wanaaga raba oo dalkooda raba oo diintooda raba oo inay joogaan raba oo kuwa qixinaya ay yihiin nin miilaysta holaynaya iyo nin siyaasi oo ku manaaficaysanaya ummadda laga qabto oo ummadda badan in la hogaamiyo rabtaa loo soo saaro siyaasi fiican loo soo saaro oo caymiya ayaa ummadda kale ku filan marka ummaddiina waa diyaar baan u isleeyahay ummaddu khayrkay rabaane ciddii hogaamin lahayd ayay la yihiin waxaa hor fadhiya nin ku diraya Soomaalida kale baa hor fadhiya si asagu u jiro oo maamulkiisu u jiro ayuu wuxuu raadinayaa mamarsiyo ah oo la hebel baa cadowgiina ah iska jira magaalo hebel iska ilaaliya xaqiini aniga keeni doona isuga buu leeyahay marka ninka noocaas oo kale ah in ummadda laga hor wareejiyo oo runtiisa ummadda loo sheegaa la rabaayo ummadda kale la isku xiro in shacabka la isku xiro in shacabka loo kala sheekeynayo wanaagiisa la isku sheego in isjaceylkooda la abuuraa la rabaa in shacabka la kala qoqobahayo la kala maaragtay wixii isjeclayn lahaa loo sheegaa la rabaa dad baa ku dhisan maanta say u jiraan ayay been u sheegahayaan say u jiraan bay ummadda kala dilahayaan taariikh xun bay sheegayaan wanaagga ma sheegahayaan haddii la isdagaalo waa jirtaa soo lama heshiinin soo lama kala guursanin soo lama mushtarin soo laisma yaqaano waxa wanaagga la sheegi mahaye wixii ummadda kala geyn lahaa buu sheegayaa si asaga meesha loogu fadhiyo oo asaga loo sugo asaguna waa danaysanayaa inta uu haysto ku xiri mahayo Soomaalida kale meel kale uu ku xirahayaa wadamo kale uu ammaanahayaa meel kale uu la aadahayaa marka inuu intaan goostuu rabaa ee ku qaraabtuu rabaa marka ummadda in laga soo gaaro oo laga xoreeyo maaragtay manaaficayste iyo miinayste iyo mooshinayste ayaa noo taalla waddaduna waxaa weeye runta la sheego la isku musaaraxoodo la musaalaxoodo la iscafiyo la dhisto nidaam lagu kalsoon yahay dad lagu kalsoon yahayna ay noo maamulaan oo markaa la helo istiqraar la helo tanmiya la helo markaas la horumaro in sha allahu tacaala allaha na siiyo subxaanahu wa tacaala dhibka allaha naga qaado culayska allaha naga qaado tafaraaruqa iyo khilaafka allaha naga qaado subxaanahu wa tacaala kulan iyo isfaham iyo quluub wanaagsan iyo maxabo allaha na siiyo hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu